maaragtay sida maaragtay loo rarto iska daayay laakiin kuwa Yurub jooga ama America ama Aasiya meesha yarban ha joogo qurbahaba joogo walaal wiilku markuu kibir iyo faqfaq keeno hooyaa tiri iyo hooyo dhuqdhuq in la yimaado biyo karkarsada biyaha markaa karkardiina saliid ku dara markay beel aad u karkaraana ragga ku shuba waa aarsatay adiguna 8 sano xay ka tiri in adeer 8 sano xabsiyaa lagu geynaya hadii raba hal lagu abriyo raba lagu sugday ma hado sugday in adeer sug madaxaana ka dhawaad dad wada soo timaadeen dadka adinka waa la horad waa sheeni adinka u raxay way naagahan wada waalnay suwa aan hadalna nafisnay in cadaadaan maarta daba taagan anaka dhame qalbadaana wada jabanay waa wada duleelnaay anaka dhame suga ana guulaystay bini'aadan ma caawinin guushayda anaa ka shaqeeyay shalay anaa guuldareystay guushayda anaa ka shaqeeyay shalay markayna guuldareysanayo imtixaanka dunida aan ku dhacaayay aniga istaagtay aniga in adeerkay geliyay mididii intaan iska bixiyan cawaasha ka geliyay intaan iska bixiyan ka aarsaday waan ka aarsaday cawaashaana midi ka geliyay waan ka aarsaday aakhiraan u diray waan ka aarsaday mididoo i geliyay intaan iska bixiyan asaga ku celiyay maxaa ka ogtahay waxaan shalay la oynaayay shalay midi baa igu tagtay halkaas buu iga geliyay in adeerkay baan u dhiibay u sheegay in adeerkay baan u dhiibay ninkay i geliyay midida in adeerkay buu ahaa nin reexaanka Saleemaan buu ahaa nin Saleemaan ila sheegto shalay Saleemaan ku doorto ahaa asagaa midida i geliyay shalay asagaa i geliyay laakiin maxaan sameeyay aniga naayaa markaa aniga intaa shalay ooyay waxaynaysid shalay midi baa igu taagneed calooshayda midi baa ku taagneed waa i waxaysay laakiin maanta waan faraxsanahay sababta ma taqaana waan guulaystay midida ninkii i geliyay intaan iska bixiyaan asaga dhex dhigay maanta baroor diiqa u taal familkiisa way oynayaan laakiin familkayga way faraxsan yihiin maanta annaga waan faraxsanahay sida familkayga u faraxsan yihiin maanta u faraxsanahay marka hore waa idin salaamay walaalahay marka xigto waxa waaye horta run ahaantii gabadhan aad iyo aad uga xumahay dhibka soo gaaray muuqaalkeedana hadda koor waa arkay channelkeygana waa soo geliyay waa ku jiriyay ma aragtay horta gabdhaha markii ay dhib oo ku dhaco dadaa jir waalayaan makrinayaan makriga ma fiicno waxaa la dhahay makriga waxaa waaye naarka kulul waa arkayseen muuqaalka hore naagta leefka soo gashay oo dhahayso haddii nin la yasaanay ula yeelo maaragtay waxaa fiican gabdhaha leefka soo galayaan carabkooda inay kontaroolaan maxaa yeele dad waxaa jira dhibaatadii ku jiro dad dhibaatadii daris la ah qofka markuu xanaaqsan yahay shaydaanna qaadi karo inaa haddana dabka lasii huriyo la dhaho maaragtay dil biyo u karkari midi qaado wadan qurbaa waaye meeshaan inkasta oo laba dambi maxay tahay waxaa ku dhacaysaa maaragtay ilaahay baa dambi ka gelaysaa qofkii isla joogtay baa dambi ka gelaysaa waxaa magac xumaa suuqa kuu gelayso adiga waa lagu xiraa xiritaan waxay u marayaan sharaf 8 sano lagu soo xiraa 8 sano ma inta ku yar maxaa waaye ayada saas hadda u hadlayso waxay ku leedahay muuqaalkeeda maan soo wada dhameen laakiin waxay dhahdaa life ku dhageysanayay ninba isoo xumay oo iga tagay haddana nin kale ay qabo oo hadduu kaa tag feer baa kaa jirto soo nin kale kuluma joogo maxaa hadduu tagay kii tagay dabada ka haraanti marka hore maxaa isku siisiinay maadaa dhashay maabahaabaa waa maya ninkaa dhashaaba beri kaa daleensanayo marka uu 20 jir noqdo waxaa waaye mustaqbalkiisa iyo maaragtay hoolihiisa adduunyo asoo ku nacbeen maaragtay adduunyadiisa geeska galaayo marka maanta nin oo dadow inaa maaragtay saas layskugu waalwaalo runta wax qurux badan maahan marka walaalahay waxaa waaye horta diinta islaamka haddii aan ku dhaqmayno wax naga halaabaya ma lahan maxaa yeele diinta islaamka hore noogu sheegtay wixii noo wanaagsan waxaa leeyahay qof markaa jeclaanaysid jaceylka ha ka badinin markii aad nicaysidna naca ha ka badinin sababta waxaa laga yaabaa inaad gadaal ka nacdid ama gadaal aad ka jeclaatid marka walaalahay waxaan leeyahay diinta islaamka ha lagu dhaqmo qof bini'aadan in dhib loo geysto waa qalad carabkaaga in lagu dhibaateeyaaba qalad ah gacantaada macadalaha inaad tiraahdo gabdhihii adigoo maamo ah oo weyn haa biyo u karkariya guba saan yeela qof waxaa laga yaabaa mental u xanuunsan inuu dhageysto leefkaas oo wixii ku dhaqaaqo waxaas wallaahi qalad weyn waaye gabdhaha leefka soo galayana inay waxaas raali ka naqdaan maahan qofka leefka oo groupka sameynaya looga baahan yahay inuu shuruudo u dejiyo oo maaragtay haddii wax lagu falaqeynana si aan bulshadana loogu faafin wax oo noloshooda qatar u ah ama diintooda qatar u ah inaa maaragtay dee wixii diintaada qatar u ahna noloshaada qatar bay u yihiin soo waxaan idinka codsanaa walaalahay dadka noocaas oo kaleeto
marka walaalahay dadka noocaas oo kaleeto waxyaalahaas oo kaleeto maaragtay faafinayaan waxaa waaye ma wanaagsano maaragtay hala qabto bulshada halaga qabto idinka ay canaani kartiin reer community ku dhigle inaa maaragtay ajirna waa ka helaysiin ummadii kaleeto si ay dhib u gaarsiin bulshada dhib u gaarsiin idinkan ajira ka helaysiin ummadii kalena dhibka waa ka reebteen saas ayaa wanaagsan marka insha Allah tacaala walaalahay gabdhaha oo walaalahay oo lacala dhib haystan waxaan kula talinayaa dhib doonto oo ku haysto baraha bulshada hala imaanin ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii uu asaga kaa qaadan dhibkaas cid kaa qaadi karta malaan horta xasuusataas wixii ilaahay kuu qoro way kugu dhacayaan waxa waa 2,000 sano ka hor ay kugu qornaayeen wixii oo ilaahay uu kuu diidan cid ku sii karta mala adduunyada inta joogto da isku umaado hooyada baa maanta kugu jecel kuma sii karto wixii ilaahay ku siinay cid kaa qaadi karta malahan haddii adduunka dhan iskugu kaaymaadaan gaali islaam taas hala xasuusta insha Allah tacaala dhib haduu ku haysto 2 salaad ragcad isku duko marka adduunyada waxa waa dhib maaragtay ma la huraayo qof walba adduunkaana arkaysid oo kor saaran dhinac baa dhib ka haysta ha u mareen qof ay u dhameystirantaa 100% ma jirto ninka maanta adduunka ugu taajirsan hadii la weydiiyo dhib baa meel ka haysta marka hadii dhib kula soo gudboonaado naqo qof dhibka u dul qaadato ilaahay subxaanahu wa tacaala xasuusato uguna dhawaato ha naqanin inaad dhibkii maaragtay ilaahay uga fogaatid ilaahay wuu ku fiirinaa wuxuu kugu fiirinaa dhibkan qofkaan aan ku itixaama addoonkayga ma iiga fogaana mase uu iigu soo dhawaana soo waxaad noqotaa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala u noqdo ilaahay ku shukriyo ku xamdiyo tan kaleeto nin bil aadan inaa naftaada u baabiiso uu ku farxaa xasuusataas qofka markii uu kaa tago uu kaa danaysta adigana ka danayso simple hadii markuu ku arko noloshaada inay qurux badan tahay asaa beri kaa soo daba calaa laakiin as soon oo ku arkaayo noloshaadiba inay xun tahay maalin walba calaacal ku jirto asagana goosku ka qoslaa noloshiisa hore usii wataa weligaa tan kale maaragtay nin calaa oo ku calaa naagteeda ay ka tagtay naagteedii aan $1,000 ku mehersadaa ay ka tagtay oo intaan soori leega cunaa ay ka tagtay waay gabdhaha ayaga kaligood ay u calaacalaan ninkan markuu ku guursanayo soori oo dhiiba aroos oo dhiga dahab oo ku gado fadhi oo dhiga wax walba oo dhiga mana ka calaacalo waa ka sii socdaa adigana ka sii soco qeyra idin rajeena asxaabta insha Allah muuqaalka halkaas aan kusoo jaraaya inta muuqaal kale ku kulmeen waxa idinkaga tagaa assalaamu calaykum muuqaalka dhinaca midig ama bidix soo kori dooran waxaan ka codsanaa daawada inaad ii daawato in la gareyso muuqaalkana aad ii share gareysiin insha Allah ay idinka rajeynaa meel fiican ii gaarsiisiin